ورا جاريدا غوريا كشقينيسي maxamed kaafisha oo kale wariyaha la dhaho oo saaxiibkayga qaaliga ah oo maanta TV ninka iskale gurigiisa ka shaqeynaysa $50 qaadanaysa hadalka aan ka hadli doono waa taas aniga shalay shaqaale waan ahay waxaan ka shaqeyn jiray dabaqyo mise hoteelada u shaqeysay dad waxa amaanay wasiir dad xilwaano $200-300 bishii ku shaqeeyay media production asxaabta like comment share asxaabta ku soo dhawaada maanta waxa ideenaa Xasan Toob fartuun balbalaarka aflagaadiyay horta waa sax nolosha saddex ka soo dhax saartay oo aad keentay noloshan social media oo soo dhax gelisay indhaha day yeelatay miska daba soconay adiga xataa hadii $2 shaqaysato ayadoo jawi degan oo waxay u kala saxan yahay si tartiib u qaadanay laakiin dadnimo ma ahan in qofka mar walba abaal haduu galo inuu sheegto dhowr marna waa arkay Xasan Toob wuxuu dhahay qofkaas u sameeyay YouTube qofkan ana oo saas sameeyay ana soo gacan qabtay qofkan ana saas yeelay qofkan asmacna qofkan ka timbatay laakiin ma ahan in oo qof walaalkiisa kale inuu ku sheegto midaasna ma ahan abaal qof dadka lagu sheegto waa laga ruuyaa midaas laakiin qofka waxa la dhahaa waa ku caawinaa hadhowna waa ku sheegaa macnaheedu ma ahan qofka shirkadda ka shaqeeya oo tusaale ka Xasan Toob dad oo asal la shaqeeyo ama waligiis ay la shaqeeyeen in adiga waliga ay kula joogaan ila ma ahan inay jiraan qof kula soo shaqeeyay oo aad YouTube u sameysay kadibna share out oo siisay kaamiradaada wax ugu duubtay wax ugu dhid gareysay oo adiga soo gelisay ila ma ahan never aniga marka waxaan oran lahaa waxyaabaha kala tagteen waxa kamid ah dagaal marka dadka hada caawiso tusaale kale dad badan oo soo gacan qabatay qofka haduu kula soo shaqeeyo caawinaad ma waragtaa tusaale kale ani hada kula shaqeysto imaadan caawinin service to service alla ani waa ku shaqeeyay adin lacag isiisay haduu meesha raba aadi kara free ah laakiin hadan ka tago macnaheeda ma ahan ina ani kuwa abaal dhacay okay fartuun balbalaarka waxyaabay soo hadal qaaday waxa kamid ah waxay tiri Xasan Toob oo dhigeyso maalinkan ka soo tagay ilaa hadda YouTube-kiga waxa ka ilaaliya magacaaga fartuun balbalaarka ilaa hadda dheeysa ma aragteen Xasan Toob saas laakiin asiga ilaa hadda wuxuu ka degi laayahay fartuun balbalaarka eedadeeda fartuun balbalaarka hawriyarteeda fartuun balbalaarka walaalkeeda waxaas xushmad darreeta intaasna waa khalad fartuun balbalaarka wiil ay jeclaaday wiil 15 jir fartuun balbalaarka wiil ay fartuun balbalaarka oo ismidixii jeclaaday hadda maamulba dhahayd waa wax ay horta ku dhibaato ah ayada dhibaato muu ahan fartuun balbalaarka way ka saxan tahay 100% way ka saxan tahay gabadhaas amansi laakiin ayada ma dhahdo Xasan Toob saas أنا كما وهالي لهمبا هذه ضيح كلي هذا الجديد لهذين كما وهالي لهمبا لكن قبردان كلا يحون قبردان ولا شيء وكلا واي سوشيال ميديا كودا شخصته هرمرة يربطها همية لهذا هاي استقل يحون ولي بقالت وينا أتكج شيء وحواي شارية ذات هاي بويسة هاي قبضاء وحس الله ماهن أنا قصوا معنا هذا ما هاي دلالكم هان وأرجنا إنا كفانو xirfadana ku muhiimsan mararka qaar aqoonta cilmiga iyo aqoonta akademiga ka dhigtaa way ku saxdaa tusaale kale mararka qaar oo kale adduunka qaladka ka celisaa laakiin mararka qaar waxa fiican xirfadlaha wuxuu ka fiican yahay aqoonyahanka qofka xirfadda leh ilaahu mu ahaado qofka boosaneerka qodo oo musku shafaago xirfadlaha mararka qaar ka fiican aqoonyahanka social media hadii mar la joogo waxa lagu joogaa xushmad fartuun balbalaarka 3 bilood ama 4 bilood ugu dambeysay dhibaatooyin la kulantay laakiin hadda jawiga ku jirto waa loo jeedaa ma ahan xanaaq hadda waxaan iga keenay laakiin waa xanaaq gabadhaas macnaha iga keenay darteeda gabadhaas ka leexo macnaha hadda waxay qusaysaa Xasan Toob dayaxweershe iyo fartuun balbalaarka ma ahan meeraha ka hadda ka soo qaad meeraha kala xafladaha xawaas markay joogan si kala u kala qantaan fartuun balbalaarka waxa kamid ah hadalada ku hadashay
way ku abaal celisay laakiin ma ahan inaad sheegatid. Fartuun Balbalaarka waxay dhahday gurigaaga ay keentay oo ku shaqeeyay maxaysa ku dhaysaa waa inkiri lahayd ana daan la runta ku sheegay oo ku inkiri lahaa laakiin naagtu way ku sheegatay ka leexo ayadoo shaqaale ah ee waxay la soo shaqeysay Xasan Toob way sheegatay laakiin ma ahan inaa waxaas oo dhan sheegatid. Xasan Toob ma kula tahay hadda qof kale inuu ku yimaado oo ku shaqeyn doono ila ma ahan hadda waxa ku tilmaamaysaa gabadha shaqaale laakiin way ku faraxsantahay ayada waxaas iska daa. Xasan Toob nin weyn tahay oo reer leh abtiyo waxaan kaaga digiraa in walaalkii oo kala tahay youtuber isla wadanahay saaxiibo gabadhaas ka leexo saacad way disiraan.